Mandera waa magaalo saddex geesood ah kuna taala xadka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya oo ay ka tirsan tahay. Waxay caan ku tahay ganacsiga iskaga kala goosha xadadka ku teedsan ee dalalka dariska. Waayahan dambe, ganacsiga ayaa hoos u dhac ku yimid, taasi oo loo aaneynayo bandow ay shacabka iskooda isu saareen xilliyadii habeenkii oo wax dhaqdhaqaaq ganacsi uusan ka jirin magaalada. Arrintan hadda waxaan ka soconaa security magaalada. Dadka becsharada markii naftigeeda waxaa la gaaray dadka qaar ilaa 3 saac tama waa la shaqeysana hoteelaha qaar ilaa 3 saac waa la shaqeysana dadka qaar 12 saac dal la gaariyo ka xirayn ka tagay marka dawladda marka dharaartiba habeenka security ku fiican tahay oo meel walba iskar iyo gaariga taagan yahay naftigeena habeen shaqeysanay meel walba iskar taagan oo amni iyo meel walba fiirinay marka reer Mandera marka kaafooda ay saarin sida taksiyalka naftigooda ilaa 3 saac waa shaqeynay markii dadkii dukaamo ay becsharada wax daarimooga marka hoteelada qaar naftigeeda jira ilaa 3 saac furan tahay qaarna 12 saac hadda la gaar lacira gudoomiyaha ammaanka Mandera Onesmus Kayada ayaa sheegay in aysan jirin wax bandow oo dawladda saartay magaalada Mandera xilliyadii habeenkii balse shacabka ay iskoodii isu saareen wuxuuna shacabka ugu baaqay in ay iska wadan karaan ganacsigooda. Good morning. Mine is just to wish the residents of Mandera town that this town is safe. The police have put all the necessary measures and strategies. And as the chairman of the county security team, we are contented with the measures that have been put in place in order to secure this town. We just want to ask the residents of this town to cooperate with the National Police Service, members and the other security agencies in order to ensure that we continue securing Mandera town. And there should be no panic. We should not listen to rumors. The national government is in charge of security, and that has been addressed. And also the issues of our national border with Somalia, those issues have been resolved by the national government. And the government is determined to go to any length in order to ensure that the citizens of this country remain secure and safe. Thank you. Ismail Mohamed, Warbaahinta Dawa.